baarlamaanka Puntland ayaa maanta 3 xildhibaan oo kamid ah baarlamaanka xilka qaadis ku sameeyay kadib markii ay eedayn u soo jeediyeen golaha xukuumadda taasoo soo martay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland waxaana uu xeer ilaaliyuhu sheegay in baaritaan dheer eedayntaasi xukuumaddu u soo jeedisay 3 xildhibaan ay ku sameeyeen kadibna uu eedayntaasi u soo gudbiyay markii uu ogaaday in xildhibaanadani ay jabiyeen sida uu sheegay dastuurka xeer ilaaliyaha ayaa maanta saxaafadda u sheegay inuu baarlamaanka u gudbiyay in nimankani 3 xildhibaan ah iyagu jabiyeen dastuurka iyo qodobo kale oo waliba xeer hoosaadka baarlamaanka kadib markii ay ku xadgudbeen ay golaha baarlamaanku u gudbiyay subaxnimadii saaka isla markaana baarlamaanku ay u codeeyeen in ay xilka qaadis ku sameeyaan 3daasi xildhibaan محمود حسن أو عثمان أو يسوع حريل عليها جود دولة بنتلان أي صباح نمدي ساعة يسوع كل اللي حفيز كيس صحافة كلا جدسن سلامر كان أوش جاي قد بدأ إيجابيا صدق ذاني حلدبان. هذا حلدبان عمر سلمان جامع هي حلدبان إبراهيم محمود قوري هي حلدبان أبشر عبد الشيخ صدق ذاس حلدبان دولة واحد كسر رئيسي هنا يكلا قوينيين لماذا قرنك بوتلان إني أبابولين محمد يراها عيدمه يقوحوه بيسان وكسو هرشيدة دولة بوتلان سيدا أوغير حفيسة كاني وحود ياريني سيدا شرعه يهي إنه إيضا لسوق بي ويسوق بسي حكومة كسما يقيمين قيمين كذب حفيسة وحا أصوى بحضي إن كالدين بيد علسي ودعي إن قدميات كاسوية هيدا بكل داخل قرنية بوتلان إن حلباننا أيهم فوق قال في الجمهورية كانوا عاصة إذا أوجد وعن قصة هذين دستور شبين إيوه أبابولي يقعنسين كوحو فسوهر تشيله من لماذا دولة بوتلان وحياري عن قصة هذين وحكم ذا وضبط دستورية وصيعة التعاملية inay ku xadgudbeen sida qodobkiisa qodobka labaad ee dastuurka kan saddexaad kan shanaad kan toddobaad xildhibaan Ibrahim Guuro isoo kamid ah xildhibaanada maanta baarlamaanku xilka ka qaadeen isla markaana eedaynta loo soo jeediyay ayaa isagu ka hadlay sababaha xilka lagu qaaday iyo sida ay la tahay waxaan qabnaa inay xaqdarro weyn ka dhacday golaha wakiilada taasoo xilka lagaga qaaday 3 xildhibaan oo aan sharciga waafaqsanayn waxaan markaa jecelahay inaan ka hadalno doorka sharciga waxa uu yahay jiritaanka dawladda iyo midnimadeeda waxa ay tahay mabaadi'da iyo shakhsiyadeeda waxa ay sii ahaan doonto haddii aan noolahay 3 arrimood baan rabaa inaan ka hadlo waxaan ku eedeeyay iyagu wax badan ka soo qaadi mayno waase taabanaya marka hore waxaan ku eedeeyay waxa weeye wax la yiraahdo SSC بعد واحد يكتب باليري SSCنا سيد أكتي ما أنا لولين ما أنا كمدنهن يمكن اللي يلاهده هجانك محاك ويلاهده أبوه هذا الحرب طولتهاي خصوصا ذلك حبين هوايراتي كمان نهن تاسوا دليل ومدعب وحل إيدي وحنا هم مقطعين التهاي بالشدة بنانك أولا قبل هذه يدد كدين لإيدي بيلتهاي annaga nalama eeday bil xaqiiqa sida eedaynta loo dhigay saasi u turjumaysa sharci ahaan marka ninka xildhibaanka ah sida uu qabo qodobka 131 firqada koowaad waxay leedahay xasaanad waxaale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda si ay ugu badbaadaan eedayn la maleegay ama cadaadis sharci darro ah iyaga oo mas'uuliyiintaasi gudanaya hawliha ay u xilsaarayaan xildhibaan ee maanta xilka qaadista lagu sameeyay waxa in xilka laga qaado u codeeyay 26 mudan oo kamid ah golaha baarlamaanka halka ay 22 mudanana ka diiday 4 mudanana ay ka aamustay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda Puntland Cabdirashiid ayaa isagu sheegay in xildhibaanadaasi sidaas ay xilkooda ku waayeen isla markaasna ay isaga baxaan howlka baarlamaanka Maxamed Saciid Yuusuf Hon Cable TV magaalada Garowe.